أيها الإخوة المؤمنون، هذه أول جمعة من جمعات هذا الشهر الكريم، وجمعتي ugu horeysay oo jumcooyinka bisha Ramadaan. bisha Ramadaan sida wax badan la sharxay waa bil la toobad keeno, la toosnaado, ilaahay loo laabto, ilaahay fariimaha baahida xambaarsan loo dirsado. waa bil haddii qofku uu dembi dhaafka ilaahay ku kasban waayo ama toosnaanta inuu diinta uu ku toosnaado uu ku dhex kasban waayo, looga baqayo inuu bilaha kalena ka faa'iidaysan waayo. sababtoo ah asbaabtii qofka uu ku toosnaan lahaa oo dhan ayaa ku dhex jira Ramadaan. sidoo kale wax badan oo qofka ka hor istaagi jiray bilaha kale inuu diintan ku toosnaado ama uu toobad keeno ama uu khayr ka shaqeeyo, wax badan oo dhinacyada kaga jiray oo leexleexin jiray oo dagaal ku hayay, ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka qabtay. oo shayaadiinta ugu waaweyn ee awaamirta waaweyn ee bani aadamka lagu baadiyay ay ka soo fusho, ilaahay waa xabisayaa bisha. wax walba oo khayr ahaa albaabadaa loo furayaa, jannadaa ka mid. wax walba oo shar ahaana albaabadaa loo xidhayaa, naartaa ka mid. sidaa darteed waxyaabaha la ina faray ee ka mu'miniin ahaan iyo ka muslimiin ahaan ilaahay intuu inoo dhawaaqay uu sameeya ina yidhi ee khayrku uu ku jiro, oo bishaanna ay ugu habboon tahay in looga faa'iidaysto, waa in diinkan ilaahay sida uu u yahay, diintan ilaahay sida ay tahay in loo qaato. aayadda aan soo qaadanay ilaahay tabaaraka wa tacaala waa inoo naadiyey, yaa ayuha aladiina aamanuu. kadib baa waxaa lagu xijiyey udkhuluu fi silmi kaafa, diintan islaamka wada gala. culimada qaar waxay yidhaahdeen kaafada waxaa loola jeedaa islaamnimada iyo diinta islaamku waxyaabaha ay sheegayso ee qaarkoodna ay awaamir yihiin, qaarkoodna ay nawaahi yihiin. wax la isfarayo oo in la sameeyo uu khayr ku jiro, iyo wax la iska reebayo oo in laga tago uu khayr ku jiro. waa labadaa wada qaata, oo labadooduba khayr bay idin yihiin. haddaad wax ilaahay idin faray qaadataanna khayr baad la kulmaysaa, haddaad wax ilaahay idinka reebay aada ka tagtaanna khayr baad la kulmaysaa. sidaa darteed khayr wax lagu naco ma leh, wax looga tagana ma leh, wax lagu diidana meesha ma yaal. waxa khayrka ahee in laydin faray inaad qaadataan laydin farayna waa waxaad awood u leedihiina wax idinka idinku culus ma ah. waxa sharta ah iyo xumaanta ah ee inaad ka tagtaan laydiin sheegay ama laydinku amrayna wax idinka culays idinku ah ma aha. sababtoo dee waa wax lala imanaye wax taklifo u baahan ma aha. adaa ku dhegaya oo dhib kala kulmaya mooyeen wax kharash kaa geliya ma aha. sidaa darteed waxa khayrka ee laydin faraya ee qaata laydin leehayna waa wax sahlan. waxa sharta ee ka taga laydin leehayna waa wax aan idinka dan idiin ahayn. wax shar oo aan kharash lagu qabanayn ma jiro. khayrka inta uu kharash kaaga baahan yahay waa yaryahay, laakiin shar meel kasto ay kaa soo gasho taklifa ayay kaa rabtaa. sidaa darteed bay shareecadu leedahay oo aayaddaa lagu caddeeyey islaamnimada, diinta islaamka inaad ilaahay u hoggaansantaan wada qaata. culimada qaarna waxay yidhaahdaan idinka oo dhan
fardi fardi iyo magaalo magaalo iyo waddan waddan iyo qabiil qabiil iyo xaafad xaafad idinkoon u kala hadhin iyo qof walba jidhkiisa oon kala hadhin indhihiisa iyo dhegihiisa iyo xubnihiisa iyo carabkiisa oo dhammaystiran islaamnimada u hoggaansan. labada arrimoodba waa lagu fasira. haddii la yeeli waayo waxyaabaha ugu waaweyn ee diinta qofka ka hor istaagaya saan tilmaannay shayaadiinta ugu horeeya. walihaada baa ilaahay leeyahay walaa tattabicuu khuطuwaati shayطaan. shaydaanka tallaabooyinkiisa midiba ay mid idin dhiibayso ilaa diinka aad ka baxdaan haddaba gelin. inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaciid. dadka shaydaan wuxuu ugu yeedhaan waa inay naar la galaan isaga. qur-aanka waad ku aragteen suurat ibraahim markii adduunkan la laabo oo la gabagabeeyo oo dadka la kala xukumo oo dadkii naar gelayana naar loo xukumo wixii janno gelayana janno loo xukumo markaas kadib buu shaydaankii mudh soo odhanaya. dadkii naarta soo galay buu u khudbaynaya, khudbo dheer buu jeedinaya. ilaahay naguma daro dadka uu maalintaa u khudbaynay. ilaahay waxaan weydiisanaynaa oon gacmaha ugu taagaynaa inuusan nagu darin dadka uu khudbaynay. khudbad dheer buu jeedinayaa hodda aynaan kulligee sharxayn, laakiin macnaheeda oo duuduuban waxaa weeye wuu ku diganaya wuxuu leeyahay ilaahay xaq buu idinku yeedhay, aniguna aniga inaad isoo raacdaan baa idinku yeedhay. idinma khasbin, awood idinma sheegan, idinkaa isoo raacay, maanta hay eedaynin. ma runtii baa mise waa beentiis? qof shaydaan uu dabada ka riixayo oo aan u jeedno oo ul loo haysto ama qori loo haysto ama toori loo haysto oo macsi loo sii wado weli miya aragta? maya. qof kastoo macsi samaynaya dhagihiisuu la hadlay, waryaa waxaa samee, waryaa waxaa diid, waryaa meesha ka kac. wuu iska raacay. marka wuxuu leeyahay falaa taluumuunii waluumuu anfusakum. aniga hay eedayno hay dagaalna idinku isdagaalu leh. maa ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikii. anigana iima gargaari kartaan, aniguna idinma gargaari karo. waxaad ilaahay ila soo wadaajiseen aniga aada dad iga dhigteen wax quman iga dhigteenna maanta beri baan ka ah. tayda igu filan buu leehay. kaasaa raacin uu yidhi alle walaa tattabicuu khuطuwaati shayطaan inahu lakum caduw mubiin. diintan walaalayaal wax aan ku dhannayn ma jiro. bal waxaad u fiirsataan qofka bani aadamka timaha ku yaalla, qofka bani aadamkaa jidhkiisa soo timo meelo badan kagama yaallaan. timaha aada arkaysidee qofka bani aadamkaa ku yaalla, diinta islaamku timaha qaarkood waxay tidhi waana la jari karaa waana la xiri karaa. madaxaaga waana gaabin kartaa waana xiri kartaa. qeyb kalena waxaa la yidhi gaabiya unbas, qeybna waxaa la yidhi ha taabanina, qeybna waxaa la yidhi xiira, qeybna waxaa la yidhi rifa. haddii markaas aan la haynin wax markaa rifi karo oo kale. qeybna lagama hadlin, lama soo hadal qaadin. inay jiraanna waa la ogyahay. diinta timaha xigmadda ilaahay uu ku ogyahay darteed qeybna ku odhanaysa inaad xiirtana adaa xaq u leh, inaad gaabisana adaa xaq u leh, inaad sii daysana adaa xaq u leh, inaad sii daysana adaa xaq u leh, inaad gaabisana adaa xaq u leh, inaad xiirtana adaa xaq u leh. ilaa qaabkii uun shareecada ku soo arooray inaan loo xiiri karin mooye. qeybna ku odhanaysa ha la gaabiyo, qeybna faraha ha laga qaado. ma diintaasaa waxaa laga waayayaa wax dowladnimo lagu dhiso? ma diintaasaa wax laga waayayaa wax ganacsiga maslaxo u ah? ma diintaasaa laga waayayaa wax awlaadda lagu tarbiyeeyo?
ma diintaasa waxaa laga waayayaa wax mujtamaca dariska ee meel wada degan maslaxo u ah? laa yumkin, laa yumkin. shareecadu waxay ka hadashay qofku siduu xamaamkiisa u gudanayo, siduu suuliga u geliyo, siduu uga soo baxayo, sida uu u seexanayo, sida uu dharka u gashanayo, sida uu qofka ka soo horbaxay u salaamayo, siduu ula hadlayo, candhuuftiisa xataa uu tufayo, qaabka uu u tufayo bay shareecadu ka hadashay, ayay ka hadashay. markaad wax bixinaysid labadaada gacmood middaa ku bixinaysid, midkaa ku qaadanaysid, waxaasoo dhan bay ka hadashay. see looga waayayaa marka waxyaabo kale oo ka waaweyn? see looga waayay? say ku suurtoobaysaa laba qof oo madax isla ah oo isku xiga oo derbi u dhexeeyo, oo labadooda xafiis ay derbi u dhexeeyo, waxay ku heshiiyaan inay waayaan inay hub isu doontaan mooye. laba qof oo madaxa oo isku xiga oo muslim xukuma, oo muslim ku dhex dhashay, oo laba xafiis oo derbi u dhexeeyo kala degan, inay waxay ku heshiiyaan waa inay ciidan isu doontaan mooye. kayf yumkin? suurtagal ma ah. qoysku wuxuu ku heshiin waaye kama waayayo, qabiilku wuxuu ku heshiin waaye diintan baa laga helaya, ganacsigu wuxuu ku barwaaqoobaya diintan baa laga helaya. hadda oo kale in dad muslimiina diintu waasaa diintu waasaa diintu waasaa la yidhaha maba u baahnayn. wixii horumar ahaa ee ummaddu ay qabsan lahayd ee xagga aqoonta iyo xagga waxa weeye maxaan ku dhaha xirfadaha iyo xagga wax soo saarka iyo xagga wixii la faa'iidaysan karo in laga wada hadlay bay jumcooyinka maba ahaynba. in hadda laga wada hadlo diintu way fiican tahay iyo diinta hala maba ahaynba. laakiin maxaa keenay culimadii islaamka oo dhan inay ku mashquulsan yihiin had iyo habeen diintu way fiican tahay, diinta haddii la qaato waa saas? waxaa keenaya bulshadu say usii jeedo amiiran wa ma'muura. nabiga calayhi salaatu wassalaam hal xadiis oo ka sugnaaday oo diintan dadku say uga fogaanayaan, si kastoo diintu ay u fiican tahay, si kastoo ay muslimiin u yihiin, si kastoo dadku ay uu qur-aankii u dhex yeelo, si kastoo axaadiista ay u dhex taallo, si kastoo mar walba loogu soo celcelinayo, inay dadku diintan islaamka xadhig u furayaan oo laan ay uga tegayaan. hal xadiis buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sheegay. saxaabiga la yidhaahdo suday ibni cajlaan, abu umaamata albahili, baahil waa qabiilkiisii, xajatulwadaac dadkii nebiga la istaagay buu ka mid ahaa calayhi salaatu wasalaam. culimada taariikhdu waxay yidhahaan maalintaa 33 sano ayuu jiray, uu istaagayay, nebiga uu la joogay calayhi salaatu wasalaam. xajatulwadaacna waad ogtihiin wax alla wixii dardaaran ah oo dhan baa lagu dhammaystiray. sida aayaddii diinka lagu ammaanayay in la dhammaystirayna lagu sheegayeyba xajatilwadaac loogu soo dejiyey. soo saas ma ahayn? suurat almaa-ida, yowmu carafa ama yowmi alxaji alakbar baa nabiga lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam aayaddii aan akrinayn, alyowma akmaltu lakum diinakum. waxaana la yidhaahdaa aayaddaas kadib wax axkaama oo bulshadu ay u baahan tahay lama soo dejin. xajkaasuu la joogay. waxyaabihii uu xifdiyey waxaa ka mid ah oo nebiga intii uu la joogay noloshiisa uu ka xifdiyey, xadiiska saxiixa ah ee nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, tunqadu cura alislaami curwatan curwa. islaamka laamihiis iyo xadhkihiis iyo qaybihiis xabad xabad baa loo furi doonaa ee ogaada. mar kasta oo mid ka mida la furo, dadku waxay u gudbayaan midka xidhan ee ku xiga. kadib baa wuxuu yidhi, wa awaluhunna naqdan ilxukmu, waxa ugu horeeya ee meel la yska dhigayo waa in la isku xukumo. wa aakhiruhunna salaa, waxa ugu dambeeya ee qof diinta haysta ugu dambeeya uu ka tagana waa salaada. imise qof oo taqaanido ama deris kula ama qaraabo kula oon tukanin baa jira. maxaan ugu fiirsanaynaa?
ilaa hadday sidaan ku dhintaan inaysan badbaadin waa la ogyahay. waxa ka fiicaneen u taraynaa muxuu yahay in diintan lagu soo celiyo, in lagu soo celiyo. ayuha alikhwa, diintan way nagu filan tahay. wax lagu heshiiyo oo la qaato oo lagu baraarana iyadaa ugu horeysa. qof kasta oo ka tagana waxaan mashaakil ahaynu maalinba maalinta ka dambaysa sii gelayaa ma jiro. nolosheenna aan dib ugu laaban, afraadan wa jamaacatan, xukuumatan wa maxkuumiin. cidda wax xukunta iyo cidda wax la xukumo iyo cidda waxaa weeye shaksiga iyo fardiga iyo jamaacada iyo bulshada dib aan ugu laaban dhaqankeena. ثuma saluu wasalimuu calى nabiyi اlamiin imtihaaلا liamri اllahi tabaaraka wa tacaala. ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna calى الnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima. allahuma salli calى muxamadi wعalى ali muxamed kama salayta calى ibrahima wعalى ali ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل لهم بطانة صالحة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ووفقنا اللهم لما تحبه وترضى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعوات يا مجيب المضطرين يا كاشف الكربات يا قاضي الحاجات يا غوث المستغيثين يا أمان الخائفين يا جار المستجيرين يا جار المستجيرين يا جار المستجيرين. رفعنا إليك أيدينا في هذه الساعة المباركة وفي هذا الشهر المبارك فلا تردها إلينا صفرا. اللهم لا تردها إلينا صفرا. اللهم لا تردها إلينا صفرا. آمين آمين وأقم السلام.